sidaad ogtihiin waxaan ballan qaadnay in 2020ka dalka uu galo qof iyo cod inuu galo waxaa caado ahaan jirtay waqtiyada xilka way soo dhow yihiin oo doorashadu u dhowdahay in markaas la ordo oo qabanqaabo la galo kadibna wax bay farax ka baxaan laakiin annagoo 1 sano iyo 4 bilood iyo 5 bilood joogna yaan waxaan go'aan ku qaadanay in aan ka howlgalno qaabkii iyo habkii doorashooyinka loo geli lahaa 2020ka arrintaani waxay ku timid midnimo iyo leadership hoggaan sax ah oo ka yimid dhanka dowlad goboleedyada aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa sida aan kulligeen isugu xilqaanay oo aan uga gaarnay go'aan inaan bilowno hadda oo aan ka shaqeyno sidii annagu masiirka ummadda Soomaaliyeed aysan gacanteena uga bixi lahayn oo aan u bilowno sidii aan ummadda Soomaaliyeed uga ballan qaadnay in uu noqdo electionka 2020ka mid qof walba oo Soomaaliyeed uu ka qayb qaato oo hanaan hufan oo transparency ah uu dhaco arrimaha dhaqaalaha waxa weeye sidii aan kheyraadka u qaybsan lahayn oo iyada labada arrimoodba waxay ku xiran yihiin dhamaystirka dastuurka qabyada ah ee noo yaala oo haddaanan heshiis laga gaarin labadan arrimood ay nagu adkaan karto inaan dhamaystirno dastuurka arrintan marka wadaagga maxaan ku raahdaa kheyraadka na dhex yaala ama resource sharingka iyada naftigeeda aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa maxaa yeelay dadkeennu muddo badan bay dhibaato ku jireen wax alla wixii kheyraad aan leenahay annagoon heshiis ka gaarin cid imaan karta ma jirto marka taasna runtii waxay la tahay waa guulo waaweyn aan gaarnay oo taariikhi ah inaan isla gaarno taasna iyada naftigeeda waxay ahayd midnimo dhexdeena ah iyo wada shaqeyn runtii noo bilaabatay waxaan rabaa oo kale inaan halkan uga mahadceliyo ra'iisul wasaaraha oo isaga naftiisa ka shaqeeyay arrimaha dhaqaalaha oo na gaarsiiyey level ama heer ay nagu aaminaan World Bank iyo IMF-ka iyo European Union ay nagu aaminaan ay si public ah oo cad u sheegaan in dawladdan ay tahay dawlad nadiif ah oo musuqmaasuq ka fog oo transparency leh oo la aamini karo taasna kuma imaanin si sahal kuma imaanin waxay ku timid shaqo badan oo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay sameeyeen taas macnaheedu waxay tahay wada shaqeynta dhexdeena ah inaan runtii gaarsiin karno dalkan horumar cad inaan gaarsiin karno wada shaqeyntaas oo runtii horeyna noogu jirtay maantana aan ku ballanay inaan xoojinno si aan ummaddeena ugu adeegno waxaan ku soo gabagabeynayaa shacabka Soomaaliyeed aan u sheegayaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah inay hal isku yihiin wax walba oo masiirka dalka ahna aan ka wada tashan doono go'aanadan qaadanno aan u gudbin doono ama aan dib ugu soo celin doono baarlamaanka si ay u ansixiyaan oo ay u sharciyeeyaan hadduu Ilaahay yiraahdo laakiin wax alla wixii maxaan ku raahdaa hadday noqoto amni hadday noqoto siyaasad iyo hadday noqoto dhaqaale waxaan ku ballannay inaan si joogto ah oo laba bilaah meeshii 3 bilood aan isku arki jirnay aan soo aragno si aan u qorsheenno maxaan ku raahdaa si aan u qorsheenno waxqabadka iyo waxaan doonayna inaan qabanno hadduu Ilaahay yiraahdo saas darteed shirkaan maanta nagu soo gabagaboobay waa xiran yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh